kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada qaybtii afraad ee taariikh faneedka allaha u naxariistay fanaanadeennii caanka ahayd xaliimo khaliif magool. guddi uu hogaaminayo Sugulle ayaa Radio Hargeysa sameeyay si ay magool uga qaadaan cod tijaabo ah. marka hore xaliimo waxay isbartay dadka iyadoo u sheegtay inay Hargeysa u timid sidii ay u sii wadan lahayd jacaylka ay u qabto inay heesto. markii guddigu weydiiyay heesta ay jeclaan lahayd inay qaado waxay dooratay inay ku luuqayso hees banaadiri ah. xaliimo waa tijaabadii ugu horeysay oo ay la hortagto guddiga qiimeeyo codka qofka fanaanka noqon kara. guddigaasina waxaa ka mid ahaa 1 Cali Sugulle oo ahaa riwaayad sameeye iyo mulaxan. 2 Maxamed Axmed Kuluc oo ahaa heesaa caan ah. 3 Cali Faynuus oo ahaa mulaxan. iyo 4 Maxamed Siciid Guroonjire oo ahaa heesaa iyo mulaxan. waxay xaliimo qaaday booqasho keliya bar iga haraaye bagoo aanad ina soo bariidayn. dhammaanteen kuraasta ayaan baraf ku noqonnay. sidaasi waxaa yidhi Sugulle. guddigii dhammaantood waxay sheegeen inay gariideen markii uu soo gaaray codka magool tintiina istaagtay. qof kasta oo goobtaas joogay waxaa soo jiitay codka macaan ee xaliimo khaliif magool. guddigii markiiba waxay bareen xaliima Cabdi Ducaale oo loo yaqiinay Cabdi Ayuub. wuxuuna ahaa madaxii Radio Hargeysa ee waqtigaas. halkaas waxaa lagu siiyey cod loo dhan yahay waxayna noqotay heesaa kooxda reediyaha ka tirsan. hees kalena loo dhiibi doono. Ducaale oo ahaa nin aad u taageera fanka aadna uga shaqeeya sidii haweenku ay uga muuqan lahaayeen fanka ayaa magool ka dhigay gabar fanaanad ah oo haddana mushahaari ah. laakiin sida fanaaniinta kale ee gabdhaha xaliimo ma aysan isticmaali karin magaceeda runta ah. waxaana la isla gartay in loo baahan yahay magac ay masraxa la tagto. Cabdi Ducaale ayaa ku dhawaaqay in loo tartamo magac loo bixiyo xaliima oo ay masraxa ku fuusho isagoo ballan qaaday abaalmarin dhan 300 oo shilin Soomaali ah oo xilligaas u dhigantay $42 lana siin doono qofka ku guuleysta magacaasi. Yuusuf Xaaji Aadan Qabille oo ahaa macallin iyo gabyaa ayaa ku guuleystay tartanka isagoo sameeyay erayo uu ku soo koobayo codka xaliima iyo dareen ahaan sida uu u arko. gabayga waxaa ku jiray ereyga magool oo micidiisu yahay caleen cagaaran oo markaas soo baxday. xaliima ilaa markaas waxay ku caanbaxday magool waxayna ahaayeen ereyadii Qabille uu ku guuleystay tartanka uguna bixiyay magool magaca ay masraxiyada weyn ku heshay. man u saaray may arooriyaad iyo ma mooday magool kaliileed. fikirka lagu bixiyay magac bixinta magool iyo u rajaynta in codkeeda wanaagsan uu jiro weligiis kuna dhex tilmaamay Qabille gabaygiisa waxaa sidoo kale la wadaaga sidaas si ka duwan Gaduuda Carwo gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee ka heesta Radio Hargeysa. markii heesaheedu caan baxeen heesa badan oo la sameeyay ayaa iyada loogu magac daray. mid ka mid ah erayadaas loogu rajeynaya inay weligeed dhalinyaro ahaato waxaa ka mid ahaa Gaduuda Carwoy gugii la arkaba allow yaa gashaanti kaa dhiga. xaqiiqdii go'aanka Ducaale uu tartanka u geliyay magac u bixinta magool iyo sidii quruxda badnayd ee uu ugu guuleystay abwaan Qabille erayadii uu ku cabiray codkeeda waxay muujisay sida dadku u jeclaa fanka.
magacaas qaaska ah ee masraxiyadda ku cusub reediyo hargeysa waxaa laga baahiyey codka layaabka leh ee dahabiga ah ee ku soo kordhay fanka soomaaliyeed. hees kasta oo ay codkeeda ku qaado wuxuu ahaa mid naftu u bogto. muujinta codkeeda awoodda leh iyo isku xirka ereyada farshaxanaysan ee magool waxay ku soo jiidatay dadweyne badan. intaas waxaa nagaga eg daawadayaal qaybtii afraad ee taariikh faneedka allaha u naxariistee fanaanadeennii weyneyd xaliimo khaliif magool.